عادكون نسيه لقتها قريتو عارفي يا وفادو يفتكي عديتو عكمل جكيدو سدوada Puntland TV magaalada Melbourne studiogiisa caawa waxaa martay barnaamijka igu ah Dr. Maxamed Cabaas oo ah wasiir dowlaha madaxtooyada iyo xiriirka caalamiga ee dowladda Puntland. Dr. Cabaas wuxuu halkan ku marayaa safar shaqo wadamada Pacifica ee Australia ay ka mid tahay. Dr. Cabaas waa khabiir ku takhasusay culumta siyaasadda iyo waliba daraasaadka Islaamka. Wuxuu shahaadadiisa koobaad iyo masterska iyo PhD-da ku qaatay wadankan aan Australia dariska la ah ee Malaysia. Caawa Dr. Cabaas waxaan ka wareysan doonaa wareysigan oo daawan doona meelo badan oo kala gedisan dhinaca siyaasadda wadamada dariska dowladda dhexe iyo dowladaha la midoobay dowladda dhexe ee Soomaaliya. Dr. Cabaas ku soo dhaw Puntland TV studiogiisa Melbourne. Dr. Cabaas waxaa socda Puntland isdaba joog ah oo isugu jira isbedel siyaasadeed iyo mashaariic tiro badan. intee in la eg baad isleedahay horumaraa laga gaaray isbedelada iyo mashaariicdaas soconayay muddadii aad dowladda hayseen? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. marka hore waxaan halkan ka salaamayaa madaxa xafiiska Puntland TV ee magaaladan Melbourne Cabdi Cilmi iyo dhammaan shaqaalaha studioga. waxaa kale oo halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacbiga Puntland iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Australia. su'aashaas waa su'aal aad u fiican Cabdi. isbedelada ay dowladdu wado oo heerar kala duwan ah ama agaasimayaal ha noqdaan ama guddoomiyeyaasha gobolada ama kuwa degmooyinka waa qayb ka mid ah shaqadii ay dowladdu maaragtay ay dadku u dhiibteen. isbedelka qof shaqada hayay in laga qaadana wax dhiba ma aha, sababtoo ah hogaankii ka weynaa oo madaxdii ka horeysay ayaa la bedelay oo doorasho lagu bedelay. marka waa qayb ka mid ah maaragtay siyaasadda dowladda. qofka marka la bedelana badanaa ma aha in shaqadii uu kasoo bixi waayay ma aha, laakiin waxaa laga yaabaa farduhu waa kala orod badiyaane qof kale oo qofkii hore meesha uu shaqada gaarsiiyey kasii wadi kara in loo dhiibo. marka qofkii shaqada laga bedelayna ma aha in hawshiisii halkaa ku ekaanayso. waxaa laga yaabaa adoo guddoomiye ahaa in hadhow ay soo baxdo baahi kale oo qofkaas uu qaban karaayo. siyaasadda markaad fiirisana haddii property qofku iska leeyahay ma aha, waa mas-uuliyad dadkaa kuu dhiibtay. qofka waa loo dhiibi karaa waana laga qaadi karaa. marka isbedeladaasi waa qayb nidaamkii dowladnimada ka mid ah. wax dhibaato ahna ma jiraan. guddoomiyeyaal baa la bedelay, kuwa kale inay ku xigaan baa suurtagal ah. marka taas waa shaqadii dowladdu haysay in lasii dardargeliyo. aadna waxaan uga mahadcelinaynaa dadkii xilka laga qaaday oo shaqooyin fiican dalka usoo qabtay. suurtagalna ay tahay in khibradooda ay leeyihiin in mar kale laga faa'iideysan doono oo hawlo kale loo dhiibi doono. su-aasha qaybta labaad oo ah qaybta ugu muhiimsan oo aad weydiisay oo mashaariicda ah. runtii madaxweyne Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas sida uu ka dhawaajiyay Puntland wajigeedu isbedeli mayso haddii aan kaabayaasha dhaqaalaha la bedelin. dowladda marka xagga amniga laga yimaado mudnaanta koowaad waxa ay siisay waa in la hormariyo kaabayaasha dhaqaalaha. tusaale ahaan waxaan usoo qaadan doonaa haddaan dhowr mashruuc taabto oo mashaariicda waaweyn ee hadda ay dowladdu dalka ka wado. madaarka Boosaaso oo kale waad ogtahay company Shiina baa dhisaya oo la yiraahdo CCECC. qorshihii hore oo la saxeexay waxa uu ahaa 2 kiiloomitir iyo 400 oo mitir 2.4 xagga dhererka. xagga balacana wuxuu ahaa 45 mitir. dowladdu waa ay fadhiisatay mar haddii airport la dhisayo waxaa nala quruxsanaaday airport weyn oo caalami ah in ay dowladdu dhisto. marka qorshihii hore waa la bedelay, heshiis labaad ayaa lala galay shirkadii. waxaa laga dhigay markaa 3.4 ayaa laga dhigay 1 kiiloomitir dhererkii ayaa lagu kordhiyay. halkii balaca oo markii hore ahayd 45 mitirna waxaa laga dhigay 60.
mashaariic iyo isbedel iyo wax badan oo khayr badan baa sheegtay. intee buu leeyahay xiriirka aad la leedihiin dowladda federaalka iyo dowladaha kale ee iyaguna qaybta ka ah Soomaaliya? xiriirkiinu seeyahay hadda? dabcan saad ogtay Puntland waxay ka tirsan tahay dowladda federaalka. xiriirku inuu wanaagsanaadana mar walba labada dhinac bay dan u tahay. dowladda federaalka dan bay u tahay sababtoo ah Puntland Soomaaliya marka 3 qaybood loo dhaw waa qayb xagga dhulka, xeebtana 1600 oo kilomitir waa more than half oo xeebta Soomaaliya Puntland bay ku taala. marka Puntland muhiimad weyn bay u leedahay dowladda dhexe, sidoo kale Puntlandna dowladda federaalku muhiimad weyn oo hadee iyadii baad ka tirsantahay moogtay. marka xiriirku mar walba inuu wanaagsanaado weeye. mararka qaarkood khilaafaad iyo caqabado way iman karaan, laakiin waa in la wada fadhiisto oo laga gudbo. marka principle ahaan dowladda Puntland siyaasadeedu waa in mar walba la wanaajiyo xiriirka la leeyahay dowladda federaalka. haddii caqabado jiraan in laga wada hadlo khilaafaadkaas oo laga gudbo. waad ogeyd bishii February ee sanadkan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaanu ka helnay casuumaad. waftigii madaxweynaha waan ku jiray, xamar waanu tagnay, si fiican baa naloo soo dhaweeyay. wajigii labaad oo maaragtay kulankan waa kii Garowe ka dhacay. marka xiriirku aad buu wanaagsan yahay. dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka oo hadda inta shaqeynaysa maaragtay iyo kuwa soo socdaba xiriirku aad buu wanaagsan yahay. bishii February markaan Muqdisho ka soo laabanay waxaan booqasho iyo casuumaad aanu ka helnay madaxweynaha dowladda Jubbaland Axmed Islaan Axmed Madoobe. marka wafti aad u balaaran runtii oo ka kooban golaha xukuumadda oo 5 wasiir ah, golaha baarlamaanka iyo hoggaanka dhaqanka ayaanu ku tagnay magaalada Kismaayo si aad u wanaagsan oo walaaltinimo iyo kalgacayl loo soo dhaweeyay. marka iyadan aad u wanaagsan yahay Jubbaland iyo Puntland xiriirka. sidoo kale dowladda maaragtay South West oo koonfur galbeed Shariif Xasan wuxuu ku jiray waftigii yimid dhawaan Garowe. marka xiriirku aad buu wanaagsan yahay. shirka kale oo lagu qaban doono Kismaayo ama Baydhabo oo ah wada tashiga dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka kaasna Puntland waa ay ka qayb gali doontaa. marka xiriirku fiican yahay, wixii khilaafaada si wada hadalaha lagu dhameeyo. maandhow arrimo badan oo aad looga hadlayo, xiisad badan iyo dood badan dhaliyay baa jira oo aad tirakoobkii dowladda federaalka ay samaysay. dowladda Puntland sidee bay u aragtay tirakoobka ay samaysay dowladda federaalka? runtii horta dhinac arrin lala yaabo ahaa sababtoo ah arrin saas culayska intaas leegle oo tirakoobkii because hadhow deeqda la bixinayo doorashooyinka dalka ka dhici doonta waxaasoo dhan moogtay waxaa lagu salgoyni oo halbeeg u noqoni marba tirakoobka laga hayo moogtay. marka arrin miisaankeedu intaa la eegyahay culayskaa leh in dowladda federaalku iyadoo wax wada tashiya aan kala yeelan maamulada dalka ka jira in wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ay saa u soo deyso runtii wax lala yaabo ahaa. dhinac baa lala yaabay, marka aad baa runtii loo qariibsaday. arrinta kale waxay ahayd dhinac kalena waa lagu qoslay because tirada la soo bandhigay ma farsamo xumay ka noqotay dowladda dhexe, riboodka ma dad kala soo qoray, sidee u sameeyeen, waxyaalahaas oo dhan lama fahmin. ma farsamo xumay ka noqoto wax la soo duuduubay wararkan waxa kamid ah in hay'adaha NGO ku soo diyaariyeen. marka ma farsamo xumay ka noqotay ma khalad ka dhacay buu ahaa oo ay gadaal ka dareemeen ilaa hadda ma garanayno. laakiin runtii aad baa loola yaabay. xataa qof aan dowladda ku jirin oo siyaasadii arrimaha u dhuundaloolin haddaad tiradii u bandhigtid qof Soomaali ah oo caadi ah oo dhahdid meel heblaay intaasaa lagu sheegay maalaan dadka caadiga tirooyin ay la yaabayaan bay dowladdu soo qortay. taas horta fajac bay ahayd, waa lala yaabay. midna waa lagu qoslo gobolada tirooyinka sida loo soo dhigay. مثلا Puntland haddaan ka soo qaadno total marka la isku geeyo deegaamada Puntland tirakoobkay ka sheegeen waa ilaa 2 milyan iyo wax yar
2 milyan iyo waxoogaa tirakoobkii ay jawaabtii ay ka bixisay dowladda Puntland wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga cali faatix dowladdu waxay soo bandhigtay qorshihii iyo tirakoobkii Puntland u yaalay oo ah 4 milyan 284,633 marka 4 milyan iyo ziyaado ayaa dowladda Puntland soo bandhigtay dowladda Muqdishona 2 milyan meelaha marka farqiga u dhaxeeya waa 2 milyan halka waxaad ka garan karaysaa dooda labada dhinacba haddaad meel iska dhigto waxaa jira marka tirakoob ama xisaab la sameynayo wax la yiraahdo margin of error yani waxba la sugeeyay margin of error waxa weeye waxba khaldamay laakiin khaladka yar ee dhacay waa wax dhici kara loo qaateen Soomaali waxa la yiraahdaa ilduuf ama ilduufna way noqon kartaa waa khalad dhacay laakiin ay okay tahay inuu khaladkaasi dhaco marka adaabaan su'aasha ku weydiin Cabdi Cilmiye 2 milyan miya khalad geli kara waa number badan weey number aad u badan weeye marka totalka Soomaaliya intee uu noqday marka hadii ilaa 12 milyan iyo waxoogaa uu noqday marka 4 milyan waliba tirakoob laga sameeyay Puntland 2006 waxa la sheegay 3.9 ayuu cagacagaynayay marka xataa Puntland numberka lama dhigi karo bombonis bay sameeyeen marka 2 milyan in margin of error ay noqon karaan runtii waa arin aad loola yaabay markiiba dowladdu way ka jawaabtay arinkaasna waxa weeye arin aanay dowladda Puntland aqbaleen Puntland kaliya maaha Sharif Hassan maamo South West isna waa ka jawaabay waa diideen madaxweyne Axmed Madoobe isaguna waa Jubaland markiiba iyaguna waa warbixin bay ka soo saareen wax aan la aqbali karin marka anigu waxaan soo jeedinayaa ra'yahan arrimaha saas oo kale marka la galayo maxaa la yiri Soomaaliga maxaa la oran jiray gacmana maxaa hoos baa loo dhaqaa khilaafka mar walba dawladda iyo dawladaha xubnaha ka inuu mar walba banaanka yaalo ummadda uma fiicna dadweynaha Soomaaliyeed uma fiicna inay mar walba arkaan dawladdii federaalka iyo dawladihii xubnaha ka oo mar walba isku dhigan mashaariicda inta leeg oo kale dawladda dhexe markay soo saarayso waxa fiican inay Jubaland u yeedhaan Puntland u yeedhaan South West maamulada kale soo baxay u yeedhaan way dhahan arinkaasaan report ka soo saarayna maxaa idin la quman hatta markay kan soo saareen inay soo bandhigaan ay dhahan waxaanu soo qornay maxaad ku daraysaan maxaad ka dhimaysaan laakiin in wasaaradda qorsheyntu ay soo tuurto runtii waxaanu arkaa inay tahay shaqo dawladeed ma aha marka taas siyaasadda Puntland tirakoobka dawladdu aad bay uga hortimid mana aqoonsanin muddo hadda laga joogo ilaa iyo intii maamulkan Puntland uu professor Cabdiweli hogaaminayo aduna aad ka mid tahay bangiga adduunka World Bank qorshayaal ayuu waday oo ka waday Puntland qorshahaas xagee maraya maxaa laga gaaray oo ay kabniin oo ay ku kabeen dawladda Puntland horta bangiga adduunka sheekadiisu ma aha sheeko si sahlan ku dhamaanayso waad ka warhaysaa marka ay Puntland la dhil gareynayaan dabcan waxay qayb ka tahay Puntland mashruuca bangiga adduunka ugu talagalay Soomaaliya marka waftiye badan baa yimid waa la soo dhaweeyay haddaan gunaanadka ku soo qabto marxalado badan bay soo martay runtii waxay noo keeneen shuruudo aad u tiro badan waxaa kamid ah tirakoobkii shaqaalaha in la hayo magacyadii kaararkii maaragtay public financial systemkii Puntland oo kale accounting systemkii u shaqeynayo waxyaalahaas oo dhan marka laga soo baxaan wax idin bilaabayna marka hadda kuma noqon karno process badan buu soo maray laakiin haddaan ka soo qabto hadda natiijadii u dambeysay oo hadda taagan usbuuc la soo dhaafay wafti Puntland baa ka soo laabtay Nairobi waxaa kamid ah aqoonyahan xagga khabiir ku ah xagga maaliyadda iyo maaragtay dawladdii hore ee dhexe militariga Soomaaliyana ka soo shaqeeyay jagooyin sare oo wasaaradda maaliyadda oo isaguna ka tirsan jaaliyaddeena Australia ee gaar ahaan magaalada Melbourne Axmed Nuur oo khabiir weyn oo xagga dhaqaalaha ah oo runtii hawsha aad ugu jira sanadkan aynu ku jirno ee 2015 sida ay u sheegeen waxay soo deyn doonaan 3.2 milyan 3 milyan iyo 200,000 oo waa inta ka dhiman 2015
oo badanaa ay ku socodsiin doonaan wasaaradaha bixiya adeeg moogta dowladdii waa wasaarad badan tahay wasaaradaha laftoodii waa wada muhiim laakiin waa sii kala muhiimsan yihiin marka sida lagu heshiiyey waxa weeye wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada inay ku bilaabaan marka waxay allocate gareeyeen hadda 3.2 milyan 3 milyan iyo 200,000 sanadkan inta ka dhiman waxaa kaloo ay ballan qaadeen oo iyagu siday noo sheegeen soo socda 5 milyan oo ay ugu talagaleen public financial management oo ah waxyaalihii madaxweynuhu ballan qaaday in reformka lagu sameeyo marka 5 milyan waa 3 sano ay soconaysaa marka waxaa kamid ah haddaan wax yar sharxo maaragtay accounting systemkii iyo qaabkii iyo sidii loo report gareynayay budgetingkii waxyaalahaas oo dhan waxaa kaloo jira 7 milyan oo ay ugu talagaleen ay ku magacaabaan capacity injection mushaaharaadkii iyo shaqaalihii la qorayay iyo budget supportkii iyo waxa marka saas waaye hawsha warkii u dambeeyay ee bangiga adduunka iyo waxaan kaloo rabaa cabdi cilmi inaan wax yar ku daro bishii March bilowgeedii waa noo yimaadeen bangiga adduunka laakiin qayb kale ahayd in la dhaho Benjamin oo Mareykan ayaa watay waftiga madaxweynaha ay la kulmeen anna waan ku jiray markaa waftigii dowladda ka socday ee wada hadal fadhiyay waxay noo sheegeen sanadkan in ku jirno bishan waliba hadda bilaabantay June inay bilaabi doonaan kabista ganacsiga goonida loo leeyahay waa private sectorka marka way siday sheegeen way imanayaan waxay Soomaaliya ugu talagaleen 30 milyan inay ku kabaan ganacsiga goonida loo leeyahay oo private sectorka oo dadku iska leeyahay marka adoo kala lagu imanayaa mashruuc baad keenaysaa mashruucaas waxay ku siinayaan grants oo marka ma aha amaah laakiin waa inuu mashruucaas ahaada mashruuc dad shaqaaleysiin kara ujeedada marka bangiga adduunku ka leeyahay waxa weeye shaqo abuur badan in Puntland gudaheedii shaqo abuur badan ay yeelato marka shuruud badan bay leeyahay qof companyga profilekiisa accounting systemkiisa waxaan inuu ka soo bixi karo hadduu companygaas ama qofka muwaadinka Puntland u dhashay shuruudda soo buuxiyo waxay siinayaan lacag 10,000 ugu yar yahay adiga ilaa tiradii kale ma xasuustay 10,000 ba ugu yar inta ay bixinayaan oo guarantee ah marka lacagta waa lagu siinayaa lagama soo ceshanaya hadhow ujeedada kale yihiin waa in dhaqdhaqaaqi oo xagga ganacsiga u fiicnaado kaas hadduu yimaadana runtii waa mashruuc u fiican dadka muwaadiniinta waxay kaloo inaga caawinayaan rugta ganacsiga iyo wasaaradda ganacsiga Puntland systemkay u shaqeeyaan inay iyadana wax ka bedelaan مثلا business registration halkan waa artay Australia marka rabta inaad ganacsi furato xafiis baad aadayso ma aha ku sameey numberkii si dadkii Puntland ay raba inay ganacsi furtaan loo sahlo systemki oo manualka laga guuro oo nidaam computerized la sameeyo waxyaalahaas ayay noo sheegeen iyo bangiga Puntland isagana qaabku u shaqeeyo modern accounting systemka inay maartay keenaan waxyaalahaas kaasna muhiim u ah marka warkii bangiga adduunka iyo Puntland oo u dambeeyay inta Soomaaliya Dr. Abbas waxa ka mid ah qurba joogta aqoon-yahanada qurba joogta ee ku noqday wadankii kana shaqeeyay dadka ku nool oo dhulkii ku nool ama aan ka taginin waxa idin arkeen inaad shaqooyinka ka qaateen ilaa madaxweyne ilaa agaasimayaal dibadda laga wada yimid arrinta maxaa ka dhaxaysaa labada qoloba wanaag bay leeyihiin labada dhinacba waxyaala ka dhimanna waa jira hadda horta qurba joogtan anuu kamid ah bal iyagan ku horeyn wanaagooda ma ogti sideedaba cabdi cilmi saad la socoto qofkii raba inuu isbedel sameeyo laba arrin baa muhiim ah adduunka hatta haddaad rabto awood inaad yeelatid two elements are very important ma ogti waa waxbarashada iyo dhaqaalaha waxbarashada iyo dhaqaalaha labadaas waa labada awood ee uu yani qofku wax ku bedeli karo su'aashu markaa waxa weeye waxbarasho xaggii cilmigii adduunka ama kii aakhiraha ahaad moogta cilmigii diintuna waa aqoonta tii u fiicneed moogta marka qurba joogtu marka ay xagga dooda qurba joogtan ka fiirinaya moogtay qurba joogtu waxay leeyihiin war hadee kaashkiina annagaa wadna waxoogaa waxbarashadiina iyaga store bidaaya ma aha kuwa guduhu inaanay wax baran
laakiin jaaniskii baanay helin. marka sidaa darteed cabdi cilmi waxaad kasoo qaadan tusaale ahaan lacagta dibadda laga diro ee Soomaaliya loo diro bangiga adduunku wuxuu ka qiyaasay 700-800 milyan ilaa 1 bilyan sanadkii. waa lacagta aynu dadka qurba joogto adiga dira maaragtay dadka Australia, North America, Europe qurba joog oo dhan. su-aashu waxa weeye 1 bilyan Soomaaliya miyaa laga soo diraa? Soomaaliya dibadda miyaa loo soo diraa? xagga markaa dhaqaalaha iyo maaragtay waad ogtahay faa'iido weyn bay dalka soo geliyaan qurba joogto. xagga aqoonta jaanis badan iyo fursado badan oo waxbarasho oo aanay helin dadkii wadanka joogay ayay heleen iyagu. dhakhaatiirta ugu badan ee Soomaaliya dibadda joogaan wadanka way iyaga ka badan. marka wanaagaas way leeyihiin. waxoogaa inta laynoo yara door xulaya waxa weeye dad maaragtay sidii la rabay nolosha ka soo bixi waayay way jiraan oo dadkii guduhu qurba joogta iskama weerarayaan waxyaalay arkeen. waxoogaa inta laynoo yara door xulaya waxa weeye maaragtay sidii la rabay nolosha ka soo bixi waayay way jiraan oo dadkii guduhu qurba joogta iskama weerarayaan waxyaalay arkeen. qof waxbarashadii ka soo bixi waayay, qof reerkiisii maaragtay caruurtii ka kala yaaceen, qof dibadda intaa ku maqnaa, aqoonna aan la soo laaban, dhaqaalana aan la soo laaban. marka labada dhinacba wanaag waa jiraa. marka waxaan leenahay yaynaan noqonin reer baadiye siyaasiga iyo reer magaal qabyaalista yaynaan noqonin. labada lama heshiisin karo moogtay. marka labada dhinac iskaashi hala yeesho. maanta Puntland laga bilaabo madaxweynaha iyo wasiirada dowlayaasha iyo agaasimayaashu dad aqoon badan leh way. maxaad haddii aad dhammaado waqtigiin uladu ku xasuustoona maxaa Soomaaliya idinka baran doonta? Puntland haddaysan horumar gaarin Soomaaliya maxaa dhici doona? horta tiimka hadda dowladda hayaa runtii dad badan oo aqoon leh. يعني نمبركي ugu badnaa baa la dhihi karaa dawladii soo maray sida la ii sheegay markaan dalkii tagay iyagu maamulada dalka ka jiraba laga bilaabo madaxweynaha oo ah professor in economics dad badan oo PhD ayaa ku jira golaha wasiirada iyo xitaa qaybaha kale ee dawladda. marka dad tayo leh oo dawlad state government arran garan kara way joogaan. waxa la dhihi karaa teamka hadda Puntland haya waa overqualified. يعني haddii dalka loo dhiibay xitaa way maamuli karaan iyo laamaha kale agaasimayaasha maaragtay tayo badan bay leeyihiin, khibrad leh xagga ciidanka oo kale dhinac walba. marka haddii aanu isbedel samayn weyno horta hadda ilaahay naguma keeno waan samaynaynaa laakiin nasiib darro ay noqon lahayd haddii aan waxaan rabnaa in lagu xasuusto dawladdii xagga developmentiga iyo horumarinta. dadweynaha reer Puntland ee halkan jooga gaar ahaan wadankan Australia waxaan aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa inay wadankii tagaan oo ay maal gashadaan. tusaale ahaan qofkii hal guri ka dhista shaqooyin badan ayaad abuuraysaa. saad ogtahay Soomaalidu waa dad maaragtay isku xidhan. marka 10 qofood shaqaalaysiisay intaas oo qof ayaa maaragtay ku nool in ay maaragtay runtii qofkii aan aragnaa dhulkii isbedel weyn baa ka jira. maanta tusaale ahaan caasimadan u badannahay maadaama aan meesha deganahay runtii ma malaynaysid yani dhulka qiimihiisu soo u kacay iyo diyaaradaha imanaya iyo movementiga. marka Soomaaliya waxay tiraahdaa isha macalina in la soo arko ardayda halkan ku dhalatay ama wax ku bartay oo maaragtay xagga caafimaadka ama nurse-ka ama dhakhaatiirta noqday waqtiga fasaxa lagu jiro kale inay yimaadaan oo Garowe Hospital ama Galkacyo Hospital ama Qardho ama Boosaaso ama maaragtay Badhan ama meelo qaybaha kale inay yimaadaan oo xitaa internshipki oo waad aragto jaamacadda marka aad dhamayso waxa la dhigay programkii trainingka samee inay xagga ku soo sameeyaan caruurta in waqtiga samarka la geeyo in maaragtay dhulkii la dhisto runtiina isbedel weyn baa ka socda iyo mashaariic. barnaamijkeeni astaan horumar ee martida noogu ahaa Dr. Maxamed Cabaas wasiir dowlaha madaxtooyada iyo xiriirka caalamiga. inta ayaan ku dhaafaynaa inta aynu barnaamijka ku kulmi doono astaan horumar asbuuca soo socda. waa Cabdi Cilmi idin leh sidaa iyo isma dhaafno iyo nabadgelyo.
دكتور عباس عادي هذا يا ضمات سنتهاي adigaa mudan وعدنا أقول عشان نقول أقولاتي إن وأنت فيو أنا كأخان أتبع ما تصدق adigaa mudan عدل كل نسيه